dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan oo ku saabsan haweenka iyo shaqo abuurka waxaana si gaar ah ugu soo qaadanayaa sheekada Xaliimo Sheekh Maxamuud oo loo yaqaano Xaliimo Kaaraan oo ka mid ah dumarka hormuudka u ah jaaliyadda Soomaalida ee waddanka Australia. Xaliimo Kaaraan burburkii dalka Soomaaliya ka hor waxay ahayd mudane ka tirsan golihii shacabka ee dawladdii militariga ahayd ee uu hogaaminayay Maxamed Siyaad Barre waxaana ay howlo kala duwan ka soo qabatay dalka muddadii ay ku noolayd. Hadda oo ay degan tahay dalka Australia waxa ay dumarka Soomaalida ah ee degan dalkaasi kala shaqaysaa sidii ay u noqon lahaayeen kuwo wax soo saar leh oo ka sokow korinta carruurta yeesha xirfado waxtar u leh qoysaskooda. Ugu horreyna waxay ka hadlaysaa siday u aragto qaaradda Australia oo ay ku nooshahay. Horta East or West home is the best. Wadan kasta oo aad tagto wadankaaga wax ka qaalisan oo ka fiican ma jiraan. Sidaas awgeedna markaan wadankayga joogay waxaan ahaa qof Soomaaliya oo jirta oo dal leh oo meel ay ku tiirsan tahay leh oo dadkeedii wax u qabanaysa. Isku mid ma aha markaad dal kaleeto oo aad marti ku tahay oo kaleeto aad timaadid. laakiin haddii ay taas dantu kugu kalifto oo wadankaas aad u soo haajirtay aad timaado the best way oo aad sameyn karto waxa weeye sidee dalkaas wax ula qabsan kartaa marka waa wadan aanan lahayn laakiin hadda aan yeeshay sababtoo ah citizenkiisii baan noqday waa ka tirsanahay shuruucdiisii iyo qawaaniintiisii iyo howlihiisina waa u hoggaansanahay. muddadii Australia joogtay Xaliimo waxay dumarka Soomaaliyeed ee hooyooyinka ah u samaysay barnaamijyo tababarka farsamada gacanta ah sida dhartolidda iyo sidoo kale cunno karinta kuwaas oo shaqo u abuuray dumar badan oo Soomaaliyeed oo degan Australia sida ay hawshaasi ku timid ayay faahfaahisay. meel ama ka muuqo ama ka maqno way Soomaalidu tiraahdaa wadanka markii aan imid dadkayga waxaan ogaa waxtarka haweenku leeyihiin. anigu markii aan wadanka joogay waxyaabihii ugu badnaa oo wax ka qaban jiray waxaa kamid ahaa dhalinyarada ururkii dhalinyarada oo ugu horreeyay oo waqtigii muxuu ahaa dawladdii ka horreysay burburka ayaan waxaan ahaa dadkii aasaasiyaashii ururka dhalinyarada Soomaaliyeed wax ka aasaasay baan ahaa. dhalinyarada la shaqeyn jirnay dhalinyarada marka da'deyda markaas waan yaraa oo qof dhalinyaro baan ahaa oo awood u leh inaan dhalinyaradu meesha marto iyo waxa u baahan yihiin oo dhan aan sort out kareyn karo oo wax ka qaban karo. laakiin markii aan wadankan imid waxaan ahaa already hooyo u baahan howl ay activity ummadda ay uga faa'iideyn karto. waxaan arkay marka meeshii xirfadaydu ahayd ee aan ku soo bartay oo aan dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba wax ugu soo bartay inayan ahayn mid aan ku shaqeyn karo halkaan markaan imid. marka dhinaca haweenka inaan wax ka qabto ayaan istusay gabdho badan oo aad u qiimo badan oo ila shaqeynayay ayaa iyo walaashay oo Sahra Sheekh Maxamuud oo aad Australia u ah ayaa waxay igu dhiirigeliyeen inaan maaragtay samayn karo wixii aan wadanka ka soo qabtay iyo sidii aan legacy-gaygii wadanka aan ka soo qabtay uusan ahayn mid macnaa meel ilaa ku dhacay halkaan wax badan aan ka samayn karo. marka waxaan isku dayay inaan maaragtay aan soo saaro dadkaada ama dad wax qabsan kara oo muxuu ahaa horumarka wadanka aan joogno wax la qabsan kara khaasatan gabdhaha dhalinyarada ah oo wadanka ku dhashay iyo kuwa iyagoo yaryar yimid gabdhaha kaleeto oo guryaha jooga oo hooyooyinka oo carruurta yaryar haysta maxaa inay awood u yeeshaan inay carruurtoodii iyo shaqo waxa ay qabsan karaan oo skiilkooda inay isku dhex wadan karaan maxaa ugu sahlan ayaan maaragtay istusay wax weyn waa ka qabtay taas oo aan dhowr abaalmarino oo kala duwan oo kala heer ah aan ku muujistay. waa gartay maxaa kamid ah tusaale ahaan haddaad mid iyo laba nooga taabato? waxaa kamid ahaa muxuu ahaa inaan xirfad u sameeyo inaan ku dadaalay oo ah waxyaabaha ay already qaarkood yaqaanaan ama passionka u leeyihiin ama sida harqaanka oo kaleeto inay harqaanka tolniinkiisa guriga waad ku tolan kartaa carruurtaada ay ku anfacaysaa nafsadaada oo ku anfacaysaa laakiin xirfad kasii sarreysa oo heer jaamacadeeda oo ay fashion industry-ga ka qaybgeli karaan inaan maaragta ku supporti gareeyo. midda kaleeto dhinaca cunnada karinteeda oo haweenkeenu ee aad xirfad ugu leeyihiin inay maaragtay ay muxuu ahaa awood u yeeshaan inay business ka samayn karaan sida canteen school public school canteen oo kaleeto ay hadda ka hor ka qabteen howlo aad u waaweyn. waxa kaleeto oo kamid ah gabdhaha dhalinyarada ah
oo aan ku dhiirigelinay inay leadership high level leadership course ay bartaan oo ay muxuu ahaa bartaan qaabka iyo sharciyada nidaamka waddankan ku shaqeeyo saas awgeedna baarlamaanadooda kala duwan iyo city councilada ay la fariistaan oo ay la doodaan oo ay la hadlaan oo ay aragtidooda u muujiyaan taasoo aad iyo aad soo jiidatay dadka ka shaqeeya siyaasadda oo aad uga heleen gabdhahaas oo ilaa iyo hadeerna ku shaqeeya meelaha qaarkood volunteer oo aan rajaynayo mustaqbalka inay kasoo baxaan kuwo waddankan waxna ka noqda waddankoodana wax tari kara. Xaliimo Qudheeda ayaa intii ay joogtay Australia waxay baratay xirfado ay ka mid tahay tolista harqaanka iyada oo qaar ka mid ah dumarkana kala shaqaysay in xirfadda dhar tolida ay shahaado ku qaataan. Harqaanka waan tolaa ma ihi expert sida gabdhaha aan soo saaray oo kaleeto gabdhihii waa ila xirfad badan yihiin laakiinse waan tolaa muxuu ahaa ma ahayn xirfad aan horay aan usoo bartay ama aan wadankii ku shaqayn jiray ma ahayn laakiin hooyo kasta way taqaanaa qaabka maaragtay harqaanka loo isticmaalo laakiin badanaaba aniga waxaan u hayr gareynayay dad bara oo experts ah oo macallimiin ah oo u imaanayo meeshii joogaan ugu yimaada xataa university-ga waxaan ka codsanay muxuu ahaa RMIT University oo ku taala Melbourne waxaan ka codsanay inay noo yimaadaan iyagu instead of gabdhuhu aadi lahaayeen maadaama hooyooyin caruur le ay yihiin time-kana aan suitable time-ka ay caruurtooda intay iskoolka markay geystaan ay kasoo noqdaan meesha guriga intay tagaan iska fadhiyi lahaayeen inay yimaadaan meeshan ilaa caruurtii galabtii kasoo baxayso galaaskana ay ku qaataan meesha sidaas awgeed jaamacaddu waxay noo offer garaysay inay iyadu noo timaado oo naloo ku yimaado meesha aan joognay maalmaha practicka waaweyn ay leeyihiin loo qaado university-ga baabuur inta lagu qaado la geeyo ay soo big machines ay kusoo practice gareeyaan laakiin hawshoodii oo dhan ay ku dhamaystaan iyaga oo meelihii iskoolka caruurtooda iyo gurigoodii iyo shaqadoodii aad ka fogeen waddan markaa joogtid waa inaad at least xirfadda aad leedahay waxbay ku anfacaysaa waad aragtay qofka guryaha nadiifiya ilaa uu shahaado soo qaato guri nadiifin maayo marka qaadashada shahaadadaas wax weyn ayay u taraysay wayna qaateen shahaadadii. Dharka ay tolaan oo kale ma dhar fashion bay tolaan mise dharka inta badan Soomaalida ay isticmaasho ayay u badan yihiin dumarku? Badanaaba waxaan ku practice gareyn jirnay hawsha waxyaabo u gadmi kara ilaa waxaan business mustaqbal abaad ka leedahay sida guryaha waxyaabaha decorationka loo isticmaalo sida cushionska door snackska basketka bahalaha waaweyn oo alaabta lagu qaato caruurta yareerka marka ay dhashaaneen boorsooyinka alaabta loogu rido biyaha iyo caanaha iyo wax noocaas inay soo saaraan waxa uu faa'iido u leh mujtamaca iyadana u leh ay u gudbin karaan ayaan badanaaba xoogeena saaraynay 3 level bayna ahaayeen level wuxuu ahaa level hoose oo markaas beginners oo la barayo dunta iyo irbada sida loo geliyo level wuxuu ahaa qayb kale oo intermediate level oo baratay nidaamkii iyo wixii la qabsatay qaybina waa qaybta aan u aragno inay wixii si fiican u barteen oo wixii u gudbayeen jaamacadda oo markaas jaamacadda ayaa darsiyo gaaray macallimiin khaas ah noo soo direysay oo nagu support gareysay markay arkeen dadaalka ay gabdhahaas u sameynayaan. dhinaca kale tan cuntada kale cunooyinka ay iskuulada ama goobaha kale ay ka kariyaan ama xirfadda cunno karinta cunada ay gabdhaha kariyaan ma tii Soomaalida mise waa tan dalkaas laga jecel yahay oo dadka dalkaas ay cunaan way isku jirtay bilmasal hadda waxaanu arrinta hawsheeda ku bilownay inaan bal fiirino inaan ku sameyno hal iskuul oo dawladda ayaan ka codsaday inay noo ogolaadaan inaan kantiinkiisa anagu qaadano oo ku shaqeeyo gabdhuhu ku shaqeeyaan cunnada Soomaalida ayaan ku karin jirnay waxaan ku karin jirnay cunnada maxaa ahaa cadaanka oo HL sandwich iyo waxyaabahaas oo kaleeto sambuuskeeni iyo bajiyaheeni iyo baastadeeni iyo bariiskeeni waa ka samayn jirnay caruurtuna dalabkoodu marka ay codsadaan ay damiyaan hooyo walba iyada oo fahamkii wax fiican baa noo samayseen dhahaysa ayay noo imaanaysay ilaa iyo 6 gabdhood ayaa meeshaas ka shaqayn jiray ama wax ka qabsin jiray hadde wax kasta problem baa ka hor yimid oo hadda xaaladdu waad aragtay industry foodka is not working so much waxaanan kaleeto oo ay sameeyaan gabdhihii qaarkood inay guryahooda iyagu ku samaystaanin oo ay waxa ay sameeyeen ay farsamo ay sameeyeen suuqa ka gataanin oo Soomaalida dhexdeeda xataa ay ka gadgataanin marka
awood ay u yeeshaan in income yar uu soo galo aan ujeedada aan anaga kale nahayna wax kale samaana waxa weeye hooyada meeshan joogta inay nafsadeeda iyo xoogeeda iyo khibradeeda iyo aqoonteeda ay timaado oo ay ku kalsoonaato oo ay isku daydo inay hal abuur yeelato ay isan noqonin kaliya qof u joogta inay maaragtay dawladda waxa ay siiso ka sugta. ugu dambeyntiina Xaliima ayaa aaminsan in aqoonta hooyada oo la kordhiyo ay dhinac waliba wax ka tarayso bulshada iyo horusocodkeeda. hooyadu waa qaali, hooyadu in la training gareeyo oo la tababaro oo ay wax barato mujtamaca dhismihiisa ayaa ku dhisan. mujtamac ma dhismo haddii hooyadu dumarku baaba'san yahay. mujtamac kasta wuxuu ku horumaraa dumarkoodu si u dhisan yihiin. hooyadu markay dhisan tahay ilmaha guriga ay ka soo baxayaan waxay noqonayaan ilmo brilliant ah, ilmo mustaqbal iyo ambition iyo dareen fog leh, ilmo wadani ku fikira, ilmo dareenkoodu open yahay oo og in waalid wax qabanaya uu ku jiro. meel kastoo ay hooyooyinku joogaan waddanka aad joogtaan baana ka koow ah muxuu ahaa Mareykanka. marka meel kastoo ay joogaaneen waxa wax iyo ama hawsha hore u mariya ama wax dalka u qabta waxa ugu badan waa haweenka. waxa lagu baxsaday waa haweenka. haweenkeeni haddana waxaad moodaa si in loo gacan bixinayo loo ignore garaynayo oo ninkan oo ama madaxweynaha raadsanaya ama prime ministerka raadsanaya ama wasiirka raadsanaya ama astronomiga ama doctorka u haysto in maaragtay isagu meesha isgeeyay oo waxaan qabsaday. laakiin hooyadii soo barbaarisay oo inuu saas ku fikiro ku soo barbaarisay haddii maskaxdeeda daily loo dilaayo oo moralkeeda la dilaayo oo dhibaato loo geysanayo how mujtamacaas uu ku horumarayo oo horumar ku gaari karaa. marka anaga waxaan ujeedadayda ugu weyn ay tahay hooyada in awoodeeda wax qabad la soo bandhigo inay wax qabsan kartana la dareensiiyaa waa muhiimsanaana intaas ayaan kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan oo ku saabsanaa haweenka iyo shaqo abuurka. waxaana si gaar ah ugu soo qaadanay sheekada Xaliimo Sheekh Maxamuud oo loo yaqaano Xaliimo Kaaraan oo ka mid ah dumarka Soomaaliyeed ee hormuudka u ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Australia. intaan mar kale kulmayno waxa dhamaantiin aan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.